kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka bandhiga media qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu door garoon beesha caalamka oo ka hadashay dood ka taagan gudiga doorashooyinka dalka Soomaaliya al-shabaab oo sheegtay inay la wareegeen deegaano ka tirsan galgaduud halka gobolka Banaadir oo digniin u diray ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho Cabdinaasir Xuseen oo loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya faafaahino kala duwan oo ka soo baxaya shil dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay gobolka Nugaal akhbaarka Soomaalida ka baxsan warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Hindiya iyo Pakistan oo mar kale isku dagaalay xadka ay wadaagaan ee Kashmir iyo tirada dadkii ku barakacay dagaalka ka socda Itoobiya oo la shaacay waa 15 bisha November 2020 inta daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka bandhiga media kuwa ugu waaweyn iminkana u diyaar garooba isagii oo fidsan aynu ku bilownay shil gaari oo sababay dhimasho qasaare iyo dhaawac isugu jira ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dangoroyo ee gobolkaasi Nugaal oo qiyaastii 114 kilomitir dhanka bari ka beegan magaalada Garowe caasimadu wax maamulka Puntland shilkan ayaa waxa uu yimid kadib markii uu rogmay gaari nooca raaxada ah xilli uu maray agagaarka deegaanka Dangoroyo waxaana shilkaasi ku dhintay laba rag ah halka uu dhaawac ka soo gaaray hal ruux waxaana dhamaantood ay ahaayeen dadkii gaariga saarnaa wararka ayaa waxa intaas ay ku sii darayaan in labada ruux ee shilkaasi ku geeriyootay uu ka mid ahaa askari ka tirsan ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Qori halka marxuumka kale oo lagu magacaabi jiray Maxamed Shiine uu ahaa qof shacab ahaa oo gaarigaasi saarnaa saraakiisha ka tirsan ciidanka ilaalada wadooyinka maamulka Puntland ayaana goobta gaaray kuwaas oo gurmad u sameeyay dadka ku waxyeelay shilka halkaasi ka dhacay waxa kale hadaynu eegno maamulka gobolka Banaadir ayaa ganacsatada ku nool magaalada caasimadda tan ee Muqdisho waxa uu ugu digay inay ka qayb qaataan nadaafad darada ka jirta magaalada xilli maamulka gobolka Banaadir uu sheegay inuu wadooyinka Muqdisho dib loogu soo celin doono bilicdii hore agaasimaha nadaafadda guud ee gobolka Banaadir Sharmaaki Cadow ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay wadaan sidii loogu guuleysan lahaa in magaalada Muqdisho ay noqoto mid nadaafadeed oo ay hagaagsan tahay balse ay jiraan dad caqabad ku ah shaqooyinkaasi nadaafadda magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in ganacsatada qaarkood ee magaalada Muqdisho ay wadooyinka ku daadiyaan qashin fara badan taasi oo bilicda wax u dhimaysa waxaana uu sheegay in qofkii lagu arkaa uu mutaysan karo xarig iyo ganaax lacageed magaalada Muqdisho wadooyin aad u fara badan oo ku yaala waxa xilligan ka jirta nadaafad daro baahsan waxa ugu daran waqtiyada uu roobku yimaado iyadoo biyaha roobkaasi ay jiraan ayaana haatan waxa mararka qaarkood soo ifbaxa in wadooyinka qaarkood ay xiraan qashooyin ay xiraan qashin aad u fara badan taasina sababteedu ay tahay in nadaafadda aan laga fikirin dhinaca kale hadaynu eegno warar lagu kala soonaan karo ay heshay bandhiga media ayaa sheegaya in beesha caalamka ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ay kala hadashay dood ka taagan dhismaha gudiga doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dawlad goboleed caradka ayaa dhawaan sheegay in gudiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalka Soomaaliya NISA halka sidoo kalena uu muran ka taagan yahay in xubnaha maamulka Somaliland ay soo magacowday xukuumadeeda xog aan heleno ayaa sheegay in beesha caalamka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ay ka dalbatay in gudiyada oo dhan oo qaranka iyo heer maamul goboleedba laga saaro wixii ciidan iyo shaqaale dawladeed ahi ilo wareejo muhiim ah oo ay helayso bandhiga media ee Muqdisho ayaa u sheegay in beesha caalamka ay dhowr qof ay ka calaamadaysatay gudiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka iyo gudiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed
iyo galmudug halka maamulka Soomaaliland laga dalbaday inay xaliso dooda u geedaaman iyadoona loo marayo wado waafaqsan sharciga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in beesha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaana beesha caalamka u sheegay inaysan jirin ciidan ku jira guddiga doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya xubno ka mid ah filla Soomaaliya oo aan la hadalnay isla markaana aan weydiinay arinta ayaa sheegay in dalku uu yahay dal madax bannaan oo xor ah isla markaasina aan waxba loo yeelin taas oo keeni karta in ay diidaan dalabka mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka ka soo yeelaya wasiirka arrimaha gudaha Generaal Muqtaar Xuseen Afrax oo xalay shir jaraa'id ku qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in gudiyada ay yihiin sida loogu heshiiyay oo loo magacaabay isla markaasina aan waxba laga bedeli doonin oo doorashadaasi ay sidaas ku dhacayso dhinaca kale haddaynu eegno al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ay si nabadgelyo ah ay kula wareegeen deegaanka Ceel Dheere oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda wax maamulkaasi Galmudug deegaanka Ceel Dheere ayaa waxaa dhowr jeer howlgallo qorshaysan ka fuliyay ciidan ka tirsan kuwa qaybta 12aad ee militariga qaranka dalka Soomaaliya howlgalkaasi oo ay saraakiisha ciidanka sheegeen in ay ku dileen xubno kuwa ugu sarsareeya al-shabaab war ay ku daawaceen baraha ay ku leeyihiin internetka waxa ay ku sheegeen in xalay fiidkii dhexe ay si nabadgelyo ah kula wareegeen deegaanka Ceel Dheere oo ku yaala inta u dhaxaysa degmada Guriceel iyo magaalada Dhuusamareeb saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya ee deegaanada Galmudug weli kama aysan hadlin warkan ka soo baxay al-shabaab ee ku aadan in ay la wareegeen deegaan ka tirsan gobolkaasi Galgaduud ugu dambeyntiina haddaynu eegno Cabdinaasir Xuseen oo loo magacaabay agaasimaha guud ee warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo in muddo ah uu ka mid ahaa dadka lafdhabarka u ahi Cabdinaasir waa qof aad u aqoon badan waxa uu wax ku soo bartay dalkaasi dibadiisa gaar ahaan dalka UK Cabdinaasir wuxuu isla wasaaradda warfaafinta ka soo qabtay xilal badan oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha telefishinka qaranka Somali National UK iyo sidoo kale UK iyo ataliyaha sare agaasimaha qorsheynta uu soo noqdo mar wasaaradda agaasimaha guud ee telefishinka qaranka Somali National agaasimaha maamulka iyo maaliyadda iyo hay'adda oo sidoo kaleba mar loo dilaacsiiyay agaasimaha guud waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka farakutiriska ah ee aqoon durugsan u leh dhanka iyo warbaahinta Soomaaliyeed iyadoona horumar badan uu ku soo kordhiyay wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta dowladda dalka Soomaaliya halka warkeena daawadayaal ka daawanaysaan waa bandhiga media iminkana akhbaraadkii dibadda qoraal boqolaal qof ayaa lagu dilay dagaal tan iyo 4 November uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu u diray ciidanka difaaca qaranka in ay howlgallo ka fuliyaan gobolka Tigreega dib markii uu ku eedeeyay ciidanka gobolkaasi in ay weerareen saldhig military oo ay leedahay dalkaasi Itoobiya dad badan oo gaaraya 14,500 oo qofood oo Itoobiyaan ayaa u qaxay dalka Suudaan waxayna hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay sheegtay in dad badan oo kale ay ku sii socdaan dalkaasi Suudaan jimcihii wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka Mijal Bech ayaa muujiyay qayladaan ku aadan xaaladda sida degdega ah ugu sii daraysa ee gobolkaasi Tigreega ka taagan afayeenka Roberto ayaa sheegay in Mijal ay si gaar ah uga xanuunsatay warbixin ay soo saartay Amnesty International oo la xiriirta dilal wadeedyo la sheegay in ay ka dhaceen deegaano koonfurta galbeed u jirta gobolkaasi Tigreega Amnesty International ayaana sidoo kale sheegtay in sawirada iyo muuqaalka laga helay goobtaasi ay muujinayso boqolaal qofood oo si xun loo dilay waxa ay sheegtay in dhibanayaashu ay u muuqdeen in ay ahaayeen xogsato aan lug ku lahayn howlgallada halkaasi iyo dagaalka ka socda gobolkaasi Tigreega ugu dambeyntii dowladda India iyo Pakistan ayaa mar kale isku dagaalay xadka ay wadaagaan ee Kashmir wadamada India iyo Pakistan ayaa midka kale ku eedeeyay in uu rasaasta furay kadib markii uu dagaal xoogan uu ku dhex maray gobolkaasi
ay ku murunsan yihiin ee Kashmir. labadani dal ee dhaca koonfurta Aasiya ayaa isaga dilay dagaalkaasi 13 askar oo laba dhinac ka kala tirsan. warbixin ay ciidanka Pakistan ay soo saareen waxay ku sheegeen in weerarkaasi lagu dilay hal askar, 4 qofood oo shacab ahna ay halkaasi ku dhinteen. warbixinta ka soo baxday ciidanka Hindiya ayaa lagu sheegay in ciidanka ilaalada xuduudda ee Pakistan in ay rasaas ku fureen ciidan Hindiya. sidoo kalena waxaa qoraal lagu sheegay in safiirka Hindiya u fadhiya Islamabad loo yeeray si uu su'aalo loo weydiiyo. warkii daawadayaal ka daawanayseen bandhiga miidiya haatan waa inaga intaa ee nabadgelyo anigu Xasan Diyaabiyaan ahaa.